الحمد لله من جاسوبين. الحمد لله من جاسوبين وأكل هاي صلاة صبحنا مساج كان كسرت وكذا لا أي وايفود. ninkani oo ayaanta dambe qabsaday baraha bulshada oo lagu magacaabo Daawud Xaashi ayaa ka warbixiyay dhacdada ku dhacday 7 bilood ka hor waxaana ka wareystay Cabdi Xaafid. Daawud Xaashi waxa uu dhashay 83 waxaana uu ku nool yahay dalka Mareykanka waxaana uu yimid 2008 laba caruur oo dhalay ayuu u dacwooday oo keenay dalka Mareykanka waxaana uu ahaa nin ku shaqeysta taksiga 8 bilood oo xabsi ah ayaa lagu xukumay sida asaga uu sheegay. gabar asaga uu dhalay ayaa maxkamadda horteeda kaga marqaati furtay oo sidaasi ayuu ku muteystay xabsiga. Daawud markii dunida ay ku adkaatay nolosheeda ayuu iska soo tuuray daar 3 biyaan ah oo xabsiga ku taalay waxa uu ka jabay labadiisi lugood. qisadani waxaan idin kula wadaagaynaa dhibaatada ka jirto qurbaha inaad ogaataan. su'aalaha la weydiiyay ayaa waxa kamid ahaa 2008 noloshaada sidee ahayd? magacaygu waa Daawud Xaashi Duufaay. waxaan ku noolahay dalka Mareykanka gaar ahaan Denver, Colorado gobol yiraahdo. marka waxaan imaaday sanadu markay ahayd 2008kii ayaan waxaan ka soo dhoofay Malta. waxaan ahaa jiray dadkii soo tahriibay oo Liibiya soo maray 2002 marka badda soo dhaafay kolley waxa hay'ad unbaa iga soo qaaday dalka Malta waxay keentay maxaa la yiraahdaa America ayaa settlement dib u dejin aan ka helay. markaan imid dalkan waxaan la daala dhacay nolosha shaqooyin badan baan ka soo shaqeeyay sida hilibka sida maxaa la yiraahdaa sida renti car-yada yacni car wash shaqooyin adiga kala duwan oo badan aan soo qabtay. ka bacdi waxaan inta abalgareeyay oon sugayay caruurtayda Itoobiya ayaan keenay waqtiyadii adiga xaalku xamar uu ka xumaa ayaa la ii sheegay inanka yacni ugu weyn lagu darayo nimanka ragga ah magacooda aan jeclayn inaan sheego oo dalkii dhibaataynayay sida aad ogtahay. marka aad baan uga warwaray markaan waa la ii diiday soo qaadidooda. hooyaday unbaa ila garab gashay waa iga ogolaatay Etoobiyaan keenay. Etoobiya wax badan ku noolaayeen walaashay baa haysay. aakhirkii waan ku guulaystay inaan keeno America. ka bacdi waxaa igu dhacay in America markaan keenay caruurtii 2 sano kolkay joogeen intaanay 2 sano dhammayn waxaa suurta gashay inay dad hooyadood ka mid tahay iyo asxaabo kale ay yacni intaan shaqada ku maqanahay hooyadood oo Yurubta joogta oo aan free phone call u sameeyay free communication oo aan ka baryay inay dugsiga geey jiray ay ka caawinto oo ay wahliso. anigu waxaan ahaa qof college dhiganaya shaqaynaya biilkii bixinaya oon ceyr qaadanin. marka kolley caruurtii maskaxda laga dhaqay waxaa lagula taliyay in aniga dad noloshayda aad uga xumaa oo kolley dad yacni jealousy noloshayda ka ahaa aad uga xumaaday laakiin aanan ogeynay saaxiib aan ka dhiganayay inay caruurta ay maskaxda ka gadiyaan igu diraan oo nolol fiican aad galaysaan abuse baad ku jirtaan idinma ogola ninkan adiga sida waqtigaa ka bacdi waxaa uun maalin maalmaha ka mida la iiga soo yeeray anoo suuqa ka shaqaynaya wiilkana yacni inaan askar guriga iga soo wacday waqtigii askarta guriga iga soo wacdana ay yiraaheen imaaw gurigaada maxaa yeelay markaan weydiiyana ay igu yiraaheen waxaad
inankaadaana soo wacay oo xabsiba oo aad assaulti garaysay aad weerar ku qaaday marka gurigii sidaa kolkaan u imidna waaba la ii diiday inaan galo hortiisaa laiga jeebeeyey xabsi baa la igu tuuray xabsigii waa suurtagali weysay inaan damaanad ku soo baxo aakhirkii ilmihii baan ka walwarayaa habeen iyo maalin maxaa la yidhaahdaa kuwii aniga askarta iigu yeeray baan xaggay ku hoyanayaan warkama hayo rabadaan baa soo galay rabadaankii baan marka waxaan xasuustaa inaan soonkii xirtay xabsigaa sidaa ugu jiray baan iigu war dambaysay anigoo yacni aad u warwaraya in aan ku soo kacay maalin dambe anoo isbitaal jiifa labada lugood ijaban yihiin jeesta ku duuban tahay kaaskigii markaan arkay aan maxaa la yidhaahdaa shoogay sariirtii soo booday waan ku jeebaysanahay sariirta askarina garabkaygu taagan yahay marka waxaa la ii sheegay inaan meeshaan jooga waa la yaabay marka wuxuu ii sheegay inaan suicide attempt inaan sameeyey oo aan isdilayay marka waa ku protecti garaynaynaa camal waa ku difaacaynaa marka xabsiga dhexdiisa oo 3 bilood markaa ku jirtay intaan dib lagu xiranin 3 dabaqa inaad iska soo tuurtay in lagu sheegay adigoo la sugayn hay long story short carry on marka aan dabaqa iska soo markaa ka bacdi adigu xabsigii isbitaalkii baa la iga qaaday xabsigaa la igu celiyey wheelchairaan ku jiray rabadaan bay ahayd waa iska soomanaa adigu 3 bilood ka bacdi unbaa ilaahay ii ogolaaday inaan yacni aan ku soo baxo damiin la'aan ilaahay ii sahla nin meesha igula xirnaa oo madow ah oo yiri hooyaday baa muslina marka qof haddii lagu xujeeyay kuu sign ah oo ku damiinta aaweysay girlfriendtaydaan la hadlayaa oo dadka soo daysa ee lacagta bis qofku ugu geeya raadso marka sidaa ka bacdi ayaan ku soo baxay alxamdulilaahi anoo wheelchair ku jira wheelchairkii ayaan muddo ku jiray wheelchairkii ka bacdi adiga gaari curyaankii ka bacdi waxaa igu dhacday inaan yacni markaan istaagay lugihii aanan soco karin aan tagsiga ku laabtay dacwadiina socoto aan biilashii reeraha gadaal jiray aan ka raadinayo oo yacni dadkii carruurtayda igu haystayna ay ka dhaarteen inaan carruurtii arko oo reerahaygii ahalkii qaraabadii qof walbaba u diideen in haddana ay jaal saboor maxkamad 3aad igu furaan oo ay dalbadaan jaal saboor waa shaqaystaa lacag hana looga soo gooyo awlaadiisii baan haynaa dadkan marka sidaa yeelaya waxaad ii sheegtay inay Soomaali yihiin waa maxay waxa ku kallifaya waa sida adigu hadalka u dhigtay in ay maxkamad ku geeyaan oo carruurtaada kugu diraan maxay idinka dhaxay wallaahi wax igala dhaxeeya ma jirin walaalow nin wuxuu yiri carruurtayda waqtigay imaadeen isii oo guriga ha iga shaqeeyeen marka waxaan ku yiri see qof carruurtiisa kuu siiyaa ma khayr mas-uul baan ahay marka adigu nin iska dhib badane magaaladan laga garanayo weeye gabadh oo dadka adigu markii magaalada yimideen suuqa iska galay adigu allah soo hanuuniyo gabadhanna saaxiibtii bay ahayd ayaduna waa dadka dhibaateeya oo maxaa la yidhaahdaa aan jeclayn jalabiibka iyo dadka adiga diinta islaamka ka soo horjeeda oo aaminsan marka waa dadka adigu waa xisbu shayaadiin aan dhihi karaa yacni wax aan ka dhibayna ilaa hadda waa la la'yahay marka waxay interest garaynayeen in aniga nolosha layga jejebiyo carruurtaanna maxaa la yidhahdaa social serviceka lacag looga qaato
sida foster careka marka ninkan ay ku dambeeyeenna gabadhaasuu 2 weeks ay haysay marka socialkii ninkan unbay tiri asagaa qaraabo ay yihiin adugu geemay cayaareen asagii baa aakhirkii la wareegay guri buu ku gatay marka adugu guri wuxuu ku qaatay 400,000 marka waxay u noqdeen income. Sidee arrintaasi ku dhacday in mar labaad xabsiga lagugu celiyo adiga oo damiin bannaanka ku joogo? In abdi systemka America waxaa weeye maanta haddii lagu soo xiro معلش haddii maanta lagu soo xiro waxaa jira systemka America يعني you are presumed until proven you are innocent until proven guilty wax la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa waqtiga lagu soo xiro suspectina aan noqoto in lagu yiraahdo xeerlaaliyaha gobolka prosecutor baa la yiraahdaa inuu offer ku keeno ku yiraahdo deal qaado kula gorgortamo haddaad diidana ka bacdi jury trial wax la yiraahdo ay ku qasban yihiin marka jury trialka ayaan aaday inta marka jury trialka ma ahan kuda kurska qabo soo hadda ha dhacdo ma ahan waa inay cadayma aruuriyaan waa inay waqti qaadato waa in systemka oo dragging feet oo la jiido oo si aad u macaato dhiil saxiixdo yacni 2 sanaan ku xiraynaa haddaad diidana dhiilkan aan ku siinay oo aad juuri nala aado 20 sano kaaga dhigaynaa in lagu cabsiyo adiga anigu waan diiday marka waxaan ku iri yacni ani dambi ma gelin ilmahaygana ma dilin adiga marka saasa igu dhacday juurigii baan aaday sano iyo barka bacdi waqtiga aan xabsiga ka soo baxay juuriga ka hor waxaa igu dhacay oo caddayn la iguma haynin in oo laga dhigo testimony caddayn oo motion la file gareeyo oo xaakimku oo u ogolaado juuriga in la sii duubo oo u aqoonsado yacni qofkan witness marka witnesskii waxaa inantii iyo inankii ayaa la yiri waxaa lasoo tababaray prosecutorkii ninkana gurigu ugu hayaa magaaladiibuu uga dhaartay ahalkaygii qaraabadii uga dhaartay isaga iyo hooyadii kabacdi adiga juuriga unbaan aaday waqtigii aan aaday insha allah waxaa igu caruurtii unbaa la keenay oo yacni lasoo training tababar fiican lasoo siiyey maxkamaddii ayay 12 qof oo caddaana ayaa la electgareeyey sidii unbaan yacni lawyerkii aniga oo difaacayana yacni wuu iqayaanay maxaa yeelay officer of the court waaye lawyelinta dalkana officer of the court waaye nin madow muslina immigrant ah oo la qasqaasayo yacni credit ku helaya maxkamadda iyo magac marka adiga lacag buu uga qaatay $16,000 ah marka sidaa unbuu wax uu ka qabtay kiiskayga ama hal motion uu faal gareeyay iya maxaad ku xaqiijinaysaa inuu 16,000 rasiidkeedii baan hayaa that's interesting why rasiidkii baan hayaa oo rakarkana wuu ku jiraa yacni iskama noqon kartid lawyerkayga unless inaad haddii kale inaad maxkamadda tagto ood barcodekaada sheegto numberkaada laysan numberkaada oo tiraaho cabdixaafid daa'uud lawyerkiisaan ahay marka lacagtana waa system gooni officekiisaad ku bixinaysaa waan hayaa rasiidka marka kabacdi adiga caruurtii unbaa la keenay way igu marqaati kacaayeen 3 beri waxaan rabaa marka caruurtaadii maxkamadda la soo geliyey ilaahay adiga kaa beeray aad dhashay maraykanka aad keentay dartood saad ii sheegtay
aad daarta isaga soo tuurto laguhu kaa jabeen oo naftaadii aad halis u gelisay wixii kugu dhacay awgeed waa sa adigu ii sheegtay dareenkaagu muxuu ahaa markaad indhaha qac isku siiseen wallaahi cabdi maalintii koobaad adigu caddayn ahaan loo aruurinayay shahaado suur testimony looyarkayga maxkamaddan ayagoo sugayo social iyo nin looyar u ahoo oo socialka u qabteen iyo prosecutorkii oo cross examination wax la yiraahdo ku samayn doona oo recording maanta ka samayn doona la ii isticmaalo trialkayga juuriga waqtiga juuriga ayaan ku arkay iyagoo hore fadhiya marka waan fili waaye waan ku soo booday waa la iga qabtay marka ayagana yacni dhinac bayba iga sikadeen marka maanan ogeynin alla waa caasho gabadhii hab baan sii maagay aabboodii aan iriba yacni saasay ii egtay si xun bay adigu ii egtay wiilkiina halkaasuu fadhiyaa nimankii baa ka soo soko maray watay socialkii iyo abay iiga oraday waa ay ignore garaysay aniguna maba ogeynba in oo marqaati nimo ay meesha u joogto waa la ii qariyey sano iyo nusna ma aanan hal sano ma aanan arkin waa la ii diida ka hor inaan arko oo restraining order wax la yiraaha nala dhex dhigay inaanan agtooda ka dhawaan karin gacan bay ka jabtay iyadoo guri ninka carruurtiisa ay la nooleed xambaarsan isbitaalkii aan aad maagay waa la ii diiday adugu aad baan uga sii warwari jiray oo kama seexa jirin waxay ku hoyato maxkamaddii ku noqo maxkamaddii bay looga yeeray maxkamaddii baa aan galnay looyarkayga wuxuu yiri ha u dhowaanin maxkamaddii baan galnay adigu waxaa laga duubayay video oo lacala haddii ay joogi waayaan waxaa prosecutorku ka baqaayay xeer ilaaliyaha gobolku in Sweden loo qaado oo kiiskan ay luusgareeyaan marka waxay weydiisteen file gareyn motion court ay maxkamadda ka file gareeyeen ay yiraaheen xaakimow haddii lacala ilmahan tagaan si kiiskan oo u sii socdo waxaan u baahanahay caddayn inaan video kala harno maxaa yeelay maxkamadda socialka ayaa carruurta waxay tiri waa in halkan laga qaado oo hooyadood loogu geeyo Sweden marka taasay ka walwalsanaayeen meeshii saas unbaa adigu videogan meeqay maxkamaddu socotay sano iyo nus hal sano iyo nus ba isku soo noqonayseen maxkamadda ها وايا ودمبينتي maxay maxkamaddu kugu xukuntay maxkamaddu waxay igu xukuntay maalintii juuriga aan igu heleen dembiga ka bacdi waxay igu xukuntay xabsiga county jailka la igeeyey sentence inaan sugaayay sentences I don't know if you xakun miya af Soomaaliga lagu yiraahdaa xakunkii maalintii la xukumayay ayaan imid anoo isku xirxiran oo askari gadaal iga soo geliyey carruurtiina loo yeeray waxaa laga qoray warqad aan kuu soo diray oo victim statement impact la yiraahdo oo markaabaan cabdi wallaahi ma xogi karin gacantayda ma gaarta garabka ilmaha naxariis darrada ku jirta gabadhii waxay halkaanay istaagtay markaabay ay afka furatay waxay weydiisatay xaakimow ninkan ma garanaysid waa nin oo shaydaan ah xabsi dheer u dir nolosheenna ka bixi mayo waxaa lagula soo taliyey oo siday hadda sheegayso iyadu haddadaan ay qiranayso markii wiil abtigeedu ila soo xiriiray ay leedahay adeer baa noo qoro warqadan ninay adeer ugu yeerto anuu ma garanayo meesha ay qaraabada ka noqdeen yaa inoo diyaariyey marka waxay ku tiri
xaakimo waxaad ku tiraahaa ninkan xabsi dheer u dir maskaxduu la'yahay wuuna diiday inuu isdaaweeyo maana koobiya ku xakum iigu xakum xabsi maana koobiya ah kuna qasab in lagu daaweeyo halkaa xabsi dheerna u dir nolosheenna ka bixi mayo nagamana haraayo waa evil waaye ma garanaysid waa nin aad iyo aad u xun please your honor waxaad ku tuurtaa kama dambaysta والله عبدي إما حنوجنين محايا كهر وحن إنتان ماشي اللي يسوقلين أون كيس كيغا لويرين حبسي قال إيقا سوا بحشي محكمة القرية كودكن أيا أو قلال أهو دادك ويرين روم ليري هذان كجري أنا قد نكوبات عملان اسكو حرنا ماشي مع والله كسجودي أنا ويسال أهن حتى يعني أنسو كعي كرين سجودك على هيك دولك أنا ديك كرين أيان لنا عنتان فديسة ما غيبان لنا عودعي كل سجود بان دولك لها أمريكا أنا جيفة إلهي وحان كبري ما أنت ديبكو مرأي إنو إلهي ربي الله الرحمن جل وعلا نويديست إنو إلو سيو محالي هذا يا ربي أمن يجيب المضر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله أخذني يا مقيت ربي إني لما أنزلت إلي من غير فقير يعني يؤتي بها الله إلهي أذكرت نفسك كسار مركا آن إيمت حنون ما بيقول هاي نبأ والله عبدي هدي آن قرب كاسة عناي قعنتي ما قارتو وحا حرن katiinad baa gacmaha lagu xiray labada lugood oo weliba oo iiga dhajiyay ayagoo dhaawaca katiinadu dhab ku siiyey silsilad culaabahe weyn ayuu hoos sida geelii igu soo dabray dhexda ayuu iiga wareejiyey halkaa meesha xudunta buufka ayuu gacmahaygii hoos u soo dejiyuu keenay xataa gacmahaygu halkaa ma gaarayaan cabdi marka si hortoodaa la isoo taagay xitaa naxariis adaa sheegaya afka iska furatay xaakimow ku tuur xabsiga naxariista waaridnimo iyo ma jirto marka sidaa darteed un baanan u aaminsanayn inaan dhalay maanta wallaahi qalbadeyda way ka baxday والله عبدي أبو معن كامل دحقل عبدي ربي سبحانه وتعالى محكمة النقود وصل نقول نعرفها محكمة النقود مركا ما هرتي أنا بحالي ولا حكم 5 سنة أو محالي رحلة حبسي أو بريسن إن يعني قد كجلعو عمل أدو حبس دير إيو 6 سنة أو برول وحلي راه probation أما حبس جوري واحد وقرنيسو probation ها intaas ayaa laygu xakumay hada wasalaamu calaykum maalintaasaa iigu dambeysay xabsigaygaan iska aaday yacni wallaahi xabsigii baan waxaan kala soo kulmay dhibaatooyin aad arrinta xabsiga inaan dib u yara dhigo daawud wiilkaadi waxaan rabaa dadweynaha soomaalida barnaamijkan daawanaya in aan waxyaalo yaryar oo muhiima oo hadallada daawud aad ka maqasheen inaan hoosta ka xariiqo iyo dadka laga hadlayo oo ay ka mid yihiin daawud carruurtiisa ninka odayga soomaaliga la sheegaya gabadhaas uu daawud eedeynayo leeyahay xisbu shahaadiin bay ku jirtaa annagu ma xaqiijin karno dadkaasu macnaheedu ma ahan daawud baa la waraystay brit somali t v dadka waxaa laga sheegaya 100% cabdixakiin ma ahan waxa daawud noo sheegayo oo ka duwan warqadihii maxkamadda oo anigu aan arkay halkaan ana doonayay soo bandhigo looyarkiisa ama garyaqaankiisa uu siiyey ayaan akhriyey xaqiiqatan waxa ku qoran markaad aragtid oo wax aad iyo aad looga daqrado dhinacay doontaba ka timaado hadday ka ahaan lahayd kuwa dacwo oogayaasha hadday ahaan lahayd daawud dadkii asaga dacweynayey iyo dhinacaad ka eegtid arrin aad u xanuun badan weeye annagu ma xaqiijin karno dhexaad baan ka nahay arrintan inaan dhegaysano lagu cibro qaato darsi laga barto ayaanu doonaynaa daawud xabsiga waxaa kula kulantay waa u imaanayaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haatan waxaad ii sheegtay inaadan sharci lahayn
shaqaysan karinin felony aad haysatid ama criminal record baan anagu halkan dhahnaa ku diidaya inaad shaqaysatid noloshaada see u maaraysaa hadda wallahi cabdi alxamdulilaahi noloshayda waqtigan xabsiga ka soo baxay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan ahay laysin la'aan baan noqday oo 1 sano gaari waan wadi waayey maxaa yeele child supportkii la igu xakumay intaan xabsiga aadin ayaa laysinkaygii loo suspendi gareeyey koobina waa kaaga soo diri doonaa insha allah haddaada dhiman teeda kale waxaan kaaga cudur daaranayaa I know inaad protect garaynayso yacni repetitionkaada iyo dadka maqanba maxaa la yidhaahdaa yacni waxaan kuu sheegayaa aniga halkan uma joogo qof muslina inaan masabito ammaan baan ka sheego maxaa la yidhaahdaa waxaan kuu soo diray amaan qof walba oo maanta u baahan aan provide garayn karaa aan soo hordhigi karaa caddayn officially la qoray officially ka soo baxday dowlad oo ku tiri kuteen iyo cabdulla shidaaye ahayn oo anigu aanan qorin daawud waxaan rabaa inaan walaalka ku sheego anuu adig kaama shaki qabo aad ii sheegaysid laakiin warbaahintu qofka maqan in aysan eedaynta loo soo jeedinayo inuusan ka jawaabi karinin aysan xaqiijin karin inaan sheegnaa marka shaqadeedaan qabsanayaa adiga maxaa lahaa kuma dulminayo dadkaaba kaloo maqanna dulmin maayo laakiin waxaan ku faraxsanaya inaan ku dhagaysto aad nala soo xiriirtay oo waxaan kaa dhex buuxaya bal aad ka nafisid casharna laga barto laysinkii ma haysatid waa tii lagaa qasiray ama lagaa garaacay halkaasaad maraysa ahay waa ku mahadsan tahay inaad maxaa la yidhaahdaa aad yacni taa samayso aad baan kaaga mahad celinayaa asan adiga kuu samayn lahaa laftigaaga markii hadduu qof idiin yimaado يعني قفك كلاتي إن أدركت آية قرآن وما يعني وإن جاءكم فاسقون كليتون أدينتو كقبتا أنا مدون إن قالوا هماس مشاء بالنميم أو مالك قيامها إلهي أيان يعني رجك لا هاي أن هل كاس أو قدمنا أن يعني هذا وقرتي waxaan rabaa noloshaadii hadda saas u maaraysaa waa shaqaysaa waa la socdaa meelaha waa ka kuurataa sidaa rabtay ma ahan waxaan rabaa intaanan usoo noqonin arrinta xabsiga iyo dhibaatada kala kulantay oo xanuun gaara leh xaqiiqatanna qofka bini'aadanka weliba nin dhallinyaraha markaad tahay waxyaalaha lagugu yidhaahdo samee aad bay u dhib badan tahay inay maskaxaada ka go'do nin baan ahay waa kula dareemi karaa usoo noqonaynaa waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan anna aan jecelahay inaan ilaahayna ugu dhowaado reerkaas burburayna la isku kakabo la isku soo dhoweeyey maadaama la wada nool yahay ilaahayna kaa beeray daa'udow maanta waa ajuun barritana waa aakhiro wiilkaagii gabadhaadu 25 iyo 23 bay jiraan weligaa adaa aabbo u noqonayo cid kaloo aabbo u noqonaysaa ma jirto si kastoo la isugu dhacay waxaa laga yaabaa maanta eray aad tidhaahdid oo cafis ah soo dhoweyn ah xeelin ah in ay markaas ayaga laftigooda isku bedelaan way weynaadayaan carruur bay dhalayaan mas-uuliyad baa fuulaysa waxay dareemayaan wixii dhacay anoon lahayn idinka adaa khaldan iyo ayagaa khaldan adigu ka aabba ahaan ka mas-uul ahaan adaa ka weyn inaad tidhaahdid aabba waa idin cafiyey waa idin jeclahay wixii igu dhacay rabbi subxaanahu watacaala hortiisaan ku cafiyey carruurteydii baa tihiin ilaahay adduuniya aakhira ha idin barakeeyaan arrintaasu see u aragta walaal والله ولا هو في عنتها إلهي أجري حسنها كاسيو أصلاح بين الناس اللي راه يعني وأنا كم هتسنتها هاي reconciliation كأتسميني سو لكن آد بيجو أذكتها هاي أنا هاي إناد يعني وفي عنتها هاي عفوا وسامح إني وناكسنت هاي أو أدو نفت هذا الريليف أتكو هليش لكن ما ديداني لكن ما نفتيان أو قلينو وصل نقنيسا لايك محالي هذا هو يدي مركان سو حسوستو إذا شيء
to be honest with you runaha xaqiiqadii run ahaantii abteed uma hayo oo waxaan irahaa hooyaday anoo xabsiga ku jiray 2018 dhimatay aan dadka ugu jeclaa ma fahantay marka waxaa siyaasabab u ahaa baan irahaa meydkeeda waxaa la ii soo sheegay anoo maalintaasoo koraa igu soo booday anoo rabadaankii 2018 25 beri sooman oo cabdi waxaan ku afurala oo yacni dhowr beri aan afurin sooman haddana yaa geerida hooyaday gabar aan soo wacayo igu tiri hooyadaa waa dhimatay أو نحرست هو يصح آمين آمين الله يرحمها الله يرحمها إن شاء الله أرنتها سبسابسا عفنتا الأوبتك حنجعلها أدور رالي أو قدرنا يقان كذا إسكاله إن الباب فرن كدقنا أن قان كما دنبيس كقادن قارحان ولي أيضا أرنتها عصبتها قيبت أودن بيس أو قدم داود